السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز سود وهذا أرض دقالقة شرفتي احترام كي جمدن. عشر كانوا حين قاعدين دونا قيبت كواد مايكروسوفت باور بينتيجا كدي نوع هتكون قريسة باور. أنت مركز قرطو كركسرو كوي معنا يا دبل كليكسي another qaabka kale u furan kartana waad garanaysaa inaad baad meel banaan right click tiraahdo qaabkan ayuu marka wax lagu dhex qoro PowerPoint-igu kugu muuqanaya hadda inagu waa inaan ku cusub samaysanaa on new kan idhaahna blank presentation marka aad tagto waa inaad ii create kara tiraahdaa PowerPoint-igaygi marka haddaynu waxoogaa dul marno PowerPoint-igu waa programka lagu sameeyay xayisiisyada presentationada waxa isticmaala jaamacadaha iyo TV-yada iyo wixii la mid ah waxaad marka hore ku diyaarsanaysaa cashirkii aad soo bandhigaysay wixii aad soo bandhigaysay kadibna waxaad ardayda haddii aad arday u sharaxayso waxaad ku sii xidhan kartaa qaabka projectorka loo yaqaano ee gidaarka lagu xidho halkaas ayaad uga sharaxaysaa ama aad ku sharaxaysaa waxyaabihii presentationkaagu ka hadlayay haddii aad company ku diyaarsanaysay iyo haddii aad cashir ku soo jeedinaysay iyo haddii wax kale lagugu diray okay aynu gudagalna markaa hal slide baa inoo yaala kuwa lagu shaqeeyo waxaa la yidhahdaa slides ama slide baa la yidhahdaa hal slide baa hadda inoo yaala new slide new slide new slide new slide hadda slide-adeenu waxay sii marayaan waa 5 weeyi 6 baynu ka dhiganaynaa qaabkaasaan uga dhiganaa marka haddii markaa aad saarayso slide dheeriya saas iskaga saaraysaa slide-ada dheeriga ahaa okay hal slide baa inoo soo hadhay ha isku dayin in slide-kaa iska xidho waayo waxa kugu adkaan doonta qaabkaad u heli lahayd oo qaab saas oo kale ayuu kugu soo bixi doonaa haddii aad halkaas ka xidho soo geli slide-ka labaad markaan slide soo gelino slide-ada dambe soo gali doona iyo kan u horeeya isku qaab ma aha soo ma arkaysid qaabkaasi ku kala duwan yihiin okay kan maxaad loogu talagalay markaa geerka ay badul istaagaysaa text box markuu mouse-ka afar noqdo baad right click leedahay kadibna cut baad leedahay kana sidoo kale right click baad leedahay cut baad leedahay meeshan waxaynu ku samaysan doonaa maxay headerkii sare ee jaamacadda ama company-gaaga okay waxaad tegaysaa insert word art kadibna word art-ga waxaad igu dul qortaa halkaasi Al Jazeera technology soo qaad markaad saa u dhammaystirato geerkaa soo qabo kadibna halkaa keenso slide-kaagi waxaa ka dheer ama hareeraha u dhaafay qoraalkaagii dhex istaago control iyo e kadibna homekii intaad ku laabato waxoogaa waxaad tidhahdaa i yaree 48 iga dhig maya 44 iga dhig okay marka 44 lagaga dhiga kan dhexda soo dhigo kadibna qaabkaas igu waxeedhe okay qaabkaas aad waxaysanaysaa waay qaabka marka aad u diyaarsato waxa laga doonayaa ee kala waa maxay xagga buttons baynu soo dhigan doonaa cashirkeena ugu dambeeya waynu arki doonaa xaggana logo aynu soo gashanayna slide-ka marka aan ka bilaabo halkan maxaad ku qoraysaa qaybihii lagu bixinayay maxadka ama jaamacadda aad ku qoraysaa for example waxaynu leenahay design-ka qaybta design-ka dhibicdii iska qaad halkaa ka qaad markaad dhibicda qaadayso kadibna waxaad ka tidhaahdaa qaybta design-ka waxaa lagu bartaa shift iyo laba dhibcood enter number iska isticmaal waxaa lagu bartaa AutoCAD ArchiCAD Lumion Revit SketchUp iyo Chief aan idhaahno okay qaybtii engineering intaasaan u kala qaadnay halkaasi waa design-ka halkaas aad ku daysanaysaa slide kala soo gelinaysaa slide-kan waxaad u bixinaysaa for example qaybta base-ka baad leedahay base xagaas aad ciwaan ku qoraysaa dhibicdii waxaad iska qaadaysaa halkaas ku dhufanaysaa waxaad leedahay qaybta base-ka waxaa lagu bartaa shift iyo laba dhibcood enter number iska isticmaal marka waxaa lagu bartaa window waxaa lagu bartaa word waxaa lagu bartaa excel access PowerPoint haye iyo publisher soo sama way isagana intaasaan ku dayaynaa marka haddaan doonayno kan inaan dib u soo dhigano oo aan base ka horreysiino kanaan qabanayna halkan maan keenaynaa saasay labadii isku dhaafayaan
okay slide kale doonaya inaan soo gashto kii afraad kadibna accounting ma leeyahay qaybta accounting halkan aan ku dhufanayaa dhibicdii halkaas aan ku jiidiyaa si aan iskaga qaado qaybta baan leeyahay haye accounting waxaa lagu bartaa numbers ka isticmaal waxaa lagu bartaa page 3 QuickBook Excel Professional Statistics baa lagu bartaa okay way slide kala soo gali xagga waxaad u bixisaa video production haye dhibicdiisa iskaga qaaday kadib marka dhibicda iska qaado maxaad sameynaysaa ee kugu xiga numberskii marka dambe aad isticmaali doontaa qaybta baad leedahay videoga waxaa lagu bartaa shift 2 dhibcood numberskii isticmaal marka waxaa lagu bartaa Photoshop After Effects Cinema 4D Camtasia Studio iyo Iwama way qaabkaas aad markaa u waxaysanaysaa okay maxaa kugu xigay markaad qaabkan u waxaysato design baa kugu xiga inaad design u samaysato oo aad qurxiso for example inaad kaladhadiisa u bedesho PowerPoint-kii qaabkaad ku taqaano waa qaabkee waa qaabkaas weey okay markaad PowerPoint-kii haddaba kaladhadiisa aad u bedesho aad nooc aad doonayso aad ka raadsato maxaa kugu xigay intaas waxaa kugu xigay inaan kan aan qurxino oo dib ugu soo laabanay